bismillaahi raxmaani raxiim. casharkan waxaan ku baran doonaa qaabka loo isticmaalo bold oo ah farta in la balbalaariyo, italic oo ah farta in xoogaa la jileeciyo oo la jijiifiyo, iyo underline oo ah farta in hoos laga xariiqo. saddexdaas qodob ayaan casharkan ku arki doonaa. okay, sidee loo sameeyaa marka bold, italic iyo underline? qoraal yar ayaa oo gaaban ayaa qoranaynaa. waxaan ahay arday barta maadada computerka. intaasaa noo qoran. maxaa noo qoran? waxaan ahay arday barta maadada computerka. marka annaga tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan bold ka dhigno oo muujino ardayga maadada uu barto. maadada uu barto maxaa waaye? waa computer. waxaa rabaa marka qoraalkayga marka la akhrinayo in laga dhex arko uu kasoo dhex muuqdo ereygaas. bold ayaa saaranaya marka farta si aan u balbalaariyo oo farta uga soo dhex muujiyo. qoraalka arabtid ama farta arabtid ama ereyga arabtid inaad ballaarisid oo muujisid, salagti saaro. salagti markii aad saaranaysid muuska ayaa tegaysaa qaybtan boodboodaysa waxaa loo yaqaanaa kasar. kasarka ayaa waxaa geenaysaa ereyga arabtid, kadibna muuska ayaa qabanaysaa, adiga oo kiligta haysid ayaa ku dul jiidaysaa. ereyga arabtid ayaa salagti kuu fuuli doona, salagti kuu saarmaya. marka uu saas salagti igu saarmo ayaa waxaan tegayaa home ayaa tegayaa. home ayaa tegay. waxaa kasii dooranayaa qaybtan fonty group. wixii inta ku jira dhan waxaa la isku dhahaa fonty. farta ayaa lagu qurxiyaa. marka fonty groupka fonty ayuu ku jiraa ayaan dhex tegayaa. marka aan dhex tago waa kana bold iyo italic oo ah jiif iyo underline oo ah in farta hoos laga xariiqo. saddexdan waay marka saddexda aan rabno inaan aragno. bold haddii aan muuska kor geysid farta ayuu isoo qori doonaa. muxuu isoo qori? bold. haddii ayda aa kor istaago fiir, wax yar le dul istaag sug, wuxuu isoo qori italic. waxaa idul geysaa underline. muxuu isoo qori? underline. kan marka maxaa loo isticmaalaa? boldiga oo ah farta in lagu balbalaariyo, ayda oo ah italic in farta la jaleeciyo la jijiifiyo, iyo yuda oo ah in hoos laga xariiqo. bal aan aragna marka. mar la arkaba wuxuu ku saari doonaa ereyga aad salagti soo saaratay, ereyga aad dooratay oo qaybta aad dooratay ayuu mar la arkaba ku saari doonaa waxa ka doorata meesha, ama bold ama italic. bal aan aragna hadda bold aan dhahno. bold hadda farti salagtiga ii saarnay fiiri, muxuu noqday? far burbuure oo ka dhex muuqata qoraalka kale laga dhex arki karo. haye jijiif aan ugu darna marka italic. farta xoogaa waa jiifata, ma dareemay? haddii aan ka qaadaa dareemi doonta. waa ka qaadaa. marka rabti inaad ka qaadid mar la arkaba waa ku naqanaya kilig ayaa dhehe. kilig waa ka qaada, mujeedaa? ku celi. waxaa rabaa inaad italic jijiifka inaad dareentid ayaa rabaa, ma fahan? hadda waa saaray, waa ka qaadaa fiiri, kilig kalaa dhaca way toosta, mujeedaa? haddii aad saaro wax yar ayuu isjaleecinaa. waxaa loo yaqaanaa jaleecan yar la gelinaya ayaa waxaa loo yaqaanaa italic. okay, underline farta aan hoos ka xariiqno. hadda qoraalkan hoos kama xariiqno, inaan hoos ka xariiqa ayaa rabaa. waxaa ku darayaa qaybtan ah underline. hadda qoraalkayga waxaan hoos ka saaray line, xariiqin ayaa hoos ka mariyay. okay, saddexdan waa muhiim, waana qoraalka ayaa lagu qurxiyaa. qoraalka la rabo in lagu muujiyaa loo isticmaalaa. waxaa jira marka hab kaleeto oo ka gaaban oo ka sahlan oo loo isticmaali karo. haddaba waa sidee? marka arabtid horta meel banaan salagti iga qaad. markaa salagti ka qaadid meel banaan kilig iskaga dheh. kilig markii aad dhahdid oo salagti ka qaadmay, waxaa rabaa marka computerka inaad ku laabto oo salagti saarto oo ka bedelo. waa tegaysaa computerka ayaa salagti ku jiidaysa adoo muuska la haysid. isla markii aad salagti muuska aad daayo, bookiskan yar oo khafiifka kor kasoo muuqanaa, mujeedaa? oo hadda muuska dila aadan soo nuuraay. bookiskan ayuu igu jiraa. waa kana biidu waatana hadda salagta ay wada saasaan kulli waa ii dooran yihiin. marka jaallahan markii uu yahay waa ii dooran yihiin micnaheeda. markii ay ka qaado fiiriya kilig, markii aad dhaho boldig waa iga qaadmaa. hadda boldig waa ka qaada fiiri, cadoo noqday. italic iyo waxaa ii saaran iyo underline, labadan jaalla ii saaran oo ii dooran yihiin micnaha. fartiidina waa jiifta, hoosna way ka xariiqan tahay. ayada aan dhaho italic aan ka qaado, hadda jiifka waa ka saaray. xariiqan hoosena aan ka saaro, waa yudi waa ka saaray. waxaan rajaynayaa inuu habka ugu fudud inuu yahay. maxaa yeelay kor ina aadid looma baahna. qaybta arabtid ereyga arabtid salagti saaro, meeshaad istaag. kadib bookiskan khafiifka ah kor ku soo muuqanayo muuska la aad asiga ayaa soo nuuraya. kadibna bold ka dooro
italic ka dooro underline ka dooro haddii aadan rabinne iska qaad underline ka qaad italic ka qaad boldigana ka qaad waxaan rajeynayaa inaa cashirkan ila fahantay inta cashirka xiga ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo